haytay markii ugu horeysay ganacsigayga waxaan ka bilaabay shaah iyo rooti aan dadka kalluumaystay xeebaha ugu keenkeeni jiray markii ugu horeysay horta markii ugu horeysay magacaygu waa Caasha Cabdikariin Xirsi waxaan ahaa ka mid ahay dadweynaha ku nool degmada Ayl gaar ahaan kalluumaysatada degmada Ayl xirfaddan waxaan ka shaqeynayay muddo dheer waxaan ka kalluumaystaa badda waxaan leeyahay qalab aan badda kaga kalluumaysto iyo sixiimado waxaa jirta in aan anigu inta badan aan badda ka soo kalluumaysto muddo dheerna badda ku jiray sidaa la'alligeed hadda waxaan goostay in aan sixiimadahayga ay ka shaqeeyaan caruurta iyo dad kale oo shaqaalaha aniguna waxaan goostay in aan u shaqeeyo bulshadayda degmada Puntland gaar ahaan Ayl in aan noqdo xildhibaan in aan maxay haytay dadkayga wuxuu qabto maadaama aan muddo dheer ku soo jiray hawl iyo shaqo naftayda iyo horumarinta ganacsigayga haddana in aan u adeego bulshadayda waan goostay maadaama aan hadda ku jiro age marka waxaan u tartamay xildhibaan golaha deegaanka degmada Ayl sanadka waxa la igu soo doortay cod aqlabiyad leh shacabkayga ay doortay hadda waxaan ahay xildhibaan waxaan u diyaarsanahay in aan u adeego bulshadayda oo dadka iyo dalkaba u shaqeeyo xildhibaannimadayda hadda waxaan soo maray muddo dheer hadafkaygu wuxuu ahaa mid hore laba jeer oo ka horeeyay iyo saddexba waa u soo tartamay tartan ma ahayn markaas wadayaasha baan weydiistay nabadoonnada qabiilkayga iima suurto gelin iyada ay hortaagnaayeen duruufo maxay haytay qabiil oo aan haweenka ogay taaka ku ahay in qabiilku soo doorto alxamdulillaah maanta Puntland waxay joogtaa nidaamka xisbiyada badan waxaan lay doortay hadda oo aan shacabku ii doorteen inaan ka noqdo xildhibaanada degmada Ayl haddana waa ku soo baxay waxaana jeclahay in aan ka shaqeeyo oo aan u shaqeeyo dadkayga iyo dalkayga in aan horumariyo horumarka degmada Ayl aan ka shaqeeyo in aan u adeego dadka liita iyo agoomaha iyo haweenka iyo dhallaanka gaar ahaan dadka waxbarashadu seegtay u qareemo iyo maxay tahay aan ka hortago tacadiyada haweenka oo aan muddo dheer ka soo marar badan aan isku day inaan ka shaqeeyo kana shaqeyn jiray haddana aan jeclahay in aan ahmiyadeyda koobaad ka dhigo waxaan kala too jeclahay in aan magaaladeyda oo ah magaalo qadiimiya degmada Ayl oo ka u talin jirtay degmooyin badan hadda ka hor haddana waxay haytay xoogaa gaabis ku dhacay in aan aniga iyo xildhibaanada hadda soo baxayba aanu wax ka bedeli doono hadda say tahay oo aanu raacsiin doono magaalooyinka waaweyn Puntland ama Soomaaliya insha Allah wixii ka dhiman oo kasta oo horumara Ayl waa isu taagi doonaa insha Allah xirfadaas kalluumaysigaagu xagee ka soo bilowday sicimad baa leedahay shaqada sidii u bilowday balaarinta ka shaqeeyay wala arrinta shaqadayda horta waa arrin dheer waxa weeye maxay haytay markii ugu horeysay ganacsigayga waxaan ka bilaabay shaah iyo rooti aan dadka kalluumaystay xeebaha ugu keenkeeni jiray markii ugu horeysay horta markii ugu horeysay waan xanuunsaday markaan xanuunsaday dhakhtarka baa la dhigay dadka ay reer miyi waaye muddo badan bay miyiga joogeen baan deganaayeen marka anigoo magaalada jooga oo maxay haytay hooyo guri joogta ah baan xanuunsaday kabacdina xanuunkii xoogay duruufo waxaan dareemay lacag la'aan kabacdi marka xanuunkii ilaahay iga soo roonaysiiyay alxamdulillah waxaan goostay in aan shaqaysto intaan noolahay aan qof dambe bariyay kabacdina haddaan isbitaal ka soo baxay waxaan isu taagay in aan shaqaysto shaqadii waxaan ka bilaabay rooti iyo shaah rootiga iyo shaahi markaan ka bilaabay ilaahay waa ii barakeeyay waxaan gaarsiiyay step by step hadda maxay haytay waxaan deganaan jiray meel arrin diirar dhaho magaalada u jirta adigu 6 kilomitir halkaas sixiimada ma gali jirin dadna ma joogin waxaa tagi jiray dadka xoogsada bas halkaas baan waxaan ka samaystay buushkaas baan waxaan ku gadan jiray cuntada la iga gato waxaan ku bedelan jiray aaragoosto ama kaambis u taqaanin kabacdina dib baa u iibsan jiray oo ka iibsan jiray shirkadaha
halkaa markii ay marayay shaqada waa ay balaaratay waxa waaye waxaan samaystay saxiimad baan iibsaday saxiimadeedii baan ku adeegan jiray kuna shaqaysan jiray waxaan kaloo samaystay saxiimadii badda u dirsaday markii muddo joogay mid kale aan gatay mid ninkayga mid wadi jiray midna aniga wadi jiray anigu tayda waxaan ugu talagalay in aan adeega ku qaato odaguna ku shaqeeyo ka bacdi waxa dhacday waanu iskaashanay waxaanu ahayn dad is-aaminsan oo isla shaqaysta ka bacdi horumar badan baan samaynay guryahan dhisannay baabuur baan gadanay saxiimado badan baan gadanay kaambaha ilaa Dubai baa u dhoorsan jirnay talaagado aan gadanay jiifa oo aan ku samaysano adigu ma sha Allah heer fiican anagoo marayna jiriiflayaalka badda soo galay baa waxay keeneen in ay qalabkii badda aan dhiganayna naga qaateen muddo badan markii ay marar badan naga qaateen odaygii badda wuu ka niyad jabay wuxuu goostay inuu tahriibo 2007 buu tahriibay anigii marka waxaan ku haray maadaama odaygii tahriibay anigii shaqadii baa ka isugu soo hartay waxaan samaystay marka waan fakiray haddana baddii burcabadeed baa soo gashay oo jiriifluhu dhaliyay waxaan samaystay hoteelka yar baan samaystay hoteelka oo fursad ahayd baday ka bannaan oo aan baday magaalada ku nool aysan lahayn hoteelo mid la saraa lahayd laakiin tan hadda deganahay ma lahayn waxaan goostay inaan hoteelka dadka yarka sameeyo in aan dadka ku nasiyo cuntada u sameeyo oo restaurantiga u sameeyay si foodkan ku gadaa badayda shaqada marna waan ku shaqo tagi jiray saxiimada marna dad baa u dhiiban jiray waxaan keenay wixii badda iga soo baxaa waxana waa gadi jiray waxaan ku maaraysan jiray ganacsigayga ka bacdina waxa dhacday in aan hadda shaqadii markaan halka soo gaarsiiyay aan goostay haddana in aan sida horeba idinku sheegay in aan noqdo maamulka degmada aan ka mid noqdo oo dalka iyo dadka u shaqeeyo saxiimada iyo baddina aan dad kale kaga faa'iideystaan caruurtayda iyo dad kale oo shaqaalaan lacag siiyo hadda waxa way halkaas hawsha maraysaa ma sha Allah waxaan u soo jeestay shaqadii siyaasadda xildhibaanku waa ku guuleystay haddana waxaan jeclahay meel fiican inaan gaarsiin doono waxaan baaq u dirayaa haweenka meel ay joogaanba in ay naftooda ku kalsoonaadaan inay shaqaystaan shaqo kasta oo jirta haweenka wuu qaban karaa maxay haytay diintooda u ogoshahay qofku inuu shaqaystaa waa wax jirta maadaama inkastoo haweenka shaqooyinka adag ay ku fiican tahay in loo shaqeeyo haddana raggii markii jahawareerka iyo burburku dhacay waxba waa isla keeni waayeen markastaba haweenka kartidu ku hartay haweenka caruurta iyo ilmaha iyo gurigii iyo reerka iyaga hadda wada wayna shaqaysan karaan marka waxaan ku boorinayaa gabdhaha Soomaaliyeed in ay shaqaystaan naftooda kalsooni horumariyaan ganacsigooda wataan diintooda iyo dalkooda iyo dadkoodana u shaqeeyaan oo bilaahi tawfiiq